kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV kusoo dhawaada warka habeen ee Faafi TV qodobada aad warkeena ku daawan doontaan waxa kamid ah barnaamij cabasho oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xildhibaano ka tirsan Hirshabelle oo dalbaday in doorashada waqtigeed ay ku dhacdo qaramada midoobay oo walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya akhbaaraadka dibadda ee aad ku daawan doontaan warkeena habeen waxa kamid ah madaxweynihii hore ee dalka Mauritania oo xabsiga laga sii daayay daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warka Faafi TV haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo soo booqatay channelkan haylaawna subscribe tira kadibna furatid calaamada gambaleelka si aad ula socoto wax walba oo aan channelkan soo gelino markaana ku soo dhawaada iyaga oo inta ka faahfaahsan xildhibaanada Hirshabelle ayaa ku baaqay in doorashada Hirshabelle ay ku dhacdo waqtigeeda xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxay ka hadleen arrimaha doorashooyinka ee maamulka Hirshabelle ee xilligan xildhibaanada qaar kamid ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay waajib tahay in waqtigeeda la cayimo doorashada aysan dib kaga dhicin madaxda maamulka Hirshabelle ayaa waxay sheegeen in ay isku diyaarinayaan doorashada dawlad goboleedka Hirshabelle ee tan xigta si aysan uga dib dhicin waqtiga loogu talagalay inay ku dhacdo doorashada arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli cabsi laga qabo in madaxda dawlad goboleedka Hirshabelle ay doonayaan in loo sameeyo muddo kordhin waqtigan waxaana xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle waxayna ku baaqayaan in doorashadaas waqtigeeda ay marnaba dib u dhici karin arrin la aqbali karna arrintaas aysan ahayn xilligan dawlad goboleedka Hirshabelle dhawaanahaanba waxaa ka socday dadaalo lagu qaban qaabinayo doorasho waqtigeeda ku dhacda oo dawlad goboleedka Hirshabelle ka qabsoonta balse waxa soo baxay warar hoose oo sheegaya in doorashada dawlad goboleedka Hirshabelle waqtigan la doonayo in la musuqmaasuqo halka kuwa kalena ay sheegeen in doorashadaas waqtigeeda dib looga dhigayo madaxda dawlad goboleedka Hirshabelle ay u xusul doobayaan sidii doorashadaas waqtigeeda ay dib kaga dhici lahayd muddo kordhinna loo sameyn lahaa muddadaas ayaana waxay sheegayaan inay gaarayso ilaa iyo muddo 2 sano ah waxaana madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle xilligan ay sheegeen inuu dadaal dheer ugu jiro in uu noqdo mar kaleeto madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle isagoo wax doorasho aanan gelin muddo kordhinna doonayo in loo sameeyo lama oga halka ay ku dambeyn doonto cabashada xilligan ka soo yeeraysa xildhibaanada ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabelle taas oo ku aadan in doorasho waqtigeeda ku dhacda ay ka dhacdo deegaanada maamulka Hirshabelle horay maamulada qaar ee dalka waxa kaga jiray in doorashada waqtigeeda aysan ku dhicin halka kuwa kalena muddo kordhin ay sameysteen sida la sheegay balse Hirshabelle xilligan waa laga digayaa in madaxdeeda muddo kordhin ay isku dayaan sidoo kalena doorashada in dib loo dhigo ayay xildhibaanada xilligan ka digayaan waxaana dhawaanahan sida la shaaciyay Hirshabelle ka bilaaban doonto xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya ay gaari doonaan magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle waqtigaas wax ka dambeeyana waxa lagu gudageli doonaa doorasho waqtigeeda ku dhacda barnaamij ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhacay barnaamij ay dhigayeen darawalada gaadiidka xamuulka qaada dalada barnaamij dhigaysay ayaa waxa ay ka cabanayeen ciidanka dawladda Soomaaliya oo ka celiyay isticmaalka wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay sheegeen in marista wadooyinka ee magaalada Muqdisho ay ku qaadato maalmo iyo sidoo kale habeenno fara badan oo aysan tagi karin xitaa xaafadahooda taasina ay caqabad ku tahay shaqooyinka iyo sidoo kale noloshooda gudoomiyaha degmada Karaan oo tagay goobta uu barnaamijku ka socday oo ahayd isla degmadaas ayaa waxa uu ka dalbaday in ay isdejiyaan isla markaana ay cabashadooda tixgelin doonaan sidoo kale gudoomiyaha degmada Karaan Abshir Maxamed ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmada Karaan uu ku dadaali doono sidii wax uga qaban lahaa cabashada xilligan ka soo yeertay darawalada gaadiidka xamuulka isagoona sidoo kale dalbaday in aysan abuurin rabshad xilligan shacab badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad u soo dhaweeyay markii uu soo baxay amarka lagu mamnuucay gaadiidka waaweyn in maalintii ay maraan wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maadaama marar badan halkaas ay ka dhaceen shilal ay sabab u ahaayeen gaadiidka waaweyn ee Muqdisho ka howlgala waxaana gaadiidkaas la geeyay waqtiga habeenkii ah inay howlgali karaan inta maalintii ahna waxa ay ku sugan yihiin oo ay ku dansan yihiin gawaaridaas wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana talaabadaas ay ahayd mid aad loo soo dhaweeyay maadaama dhibka ugu badan ee isku qabay wadooyinka ay ahaayeen gaadiidkaas oo sababi jiray inay isku xirmaan wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dadka shacabka ayaana xilligan waxay dawladda ka codsanayaan in aan marnaba la fasixin maalinta cad gaadiidkaas waaweyn oo ah kuwa dhibaateeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya warbixin ka soo baxday xafiiska isku duwaha arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee loo yaqaan OCHA ayaa waxa looga hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan saameynta uu ku yeeshay cudurka faafa ee COVID-19 hay'adda ayaa walwal hor leh ka muujisay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 kuwaas oo shalayto laga diiwaan galiyay gudaha dalka warbixinta ka soo baxda xafiiska qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in degmooyinka qaar aysan haysan qalab ku filan sida hawasiyo iyo sidoo kale qalabka qofka siiya neefta ee loo yaqaano oxygen shaybaar lagu baaro dadka iyo sidoo kale xarumaha dadka lagu karantiilo sidoo kale hay'adan ayaa shaacisay in loo baahan yahay in wax laga bedelo sida ay haatan wax u socdaan
kadib markii Puntland laga diiwaan galiyay in ka badan 400 oo ruux oo ku dhacay cudurka COVID-19 waxa kale oo warbixintan lagu sheegay in ay jiraan shakhsiyaad badan oo u dhintay cudurkan iyaga oo aanan lagu sameyn baaritaan caafimaad ama aanan lagu arkin astaamaha cudurka COVID-19 ugu dambeyntii hay'adda ayaa muujisay in uu yar yahay dadaalada dawladda ay ku xakameynayso cudurka COVID-19 oo si weyn saameyn ugu yeeshay caalamka oo idil daawadayaal wali waxa daawanaysaan oo la socotaan warka habeen ee Faafi TV markaana akhbaraadka caalamka madaxweynihii hore ee dalka Mauritania ayaa xabsiga laga sii daayay madaxweynihii hore ee dalka Mauritania Maxamed Abdel Aziz ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii muddo usbuuc ah uu xirnaa booliska si ay su'aalo ugu weydiiyaan arrimo la xiriira tuhun dhanka musuqmaasuqa qareenkiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Abdel Aziz laga mamnuucay inuu ka baxo magaalada caasimada ee dalka Mauritania Abdel Aziz ayaa 17 Agoosto looga yeeray xarunta dambi baarista iyadoona maanta la fasaxay Abdel Aziz ayaa 17 bisha Agoosto looga yeeray xarunta dambi baarista iyadoona ugu dambeyntii xilligan la fasaxay lana amray in la geeyo goob gaar ah balse hay'adda dambi baarista ee wadankaas ayaa sheegtay inuusan ka bixi karin gudaha wadanka Mauritania daawadayaal intaas waxa ku dhan warka habeen ee Faafi TV waad ku maasantiin la socodka ila saanqaadka warkeena habeen haddii ay taa markii kugu horeyso aad na soo booqato ha ilaawin inaad tira subscribe kadibna furatid calaamadda gambaleelka si aad u hesho wax walba oo cusub oo aan soo gelina channelkan kana dhaca dalka iyo dibaddiisa